وفرح سنة عاود الأسرة كونك حاول إلا أنت بتطلش تيم في كلمة أو الوقت الوجودي خرج بالجديد سيئة وخوري حقيقة لما عندي بقى شركة البعوة استحقاق بالجنوة أقول كرسي سيدا كم وقت استحقاق الجنوة ممكن الغابة عدد مالو ممكن الجوال صلاح مغابة شركة نوعا الفائدوين كيف يعني يرادي الأرضية محاكمة يحوزونيسا استحقاقونا يحوزونيسا كونتروسيونا يحوزونيسا للمدي marka ka hadlayo dadweynaha istaxkaam ka hadlayo hadalin ka ardayga ma gobol kale oo uu barnaamijka ku qaato iyo arday jaamacadka waqti sagaashan waxa laga yaabaa hal jaamacad kala duwan iyo waxa la community kala duwan ka socda ardaygu wuxuu xaq u leeyahay in codkiisa la dhageysto wuxuu xaq u leeyahay codkiisa meel leer in la gaarsiiyo markaan dhahayno codkiisa meel leer in la gaarsiiyo waxaa waaye caqabada ka hor imaan karta ardaygan inuu asixal si kelina laga yaabaa laakiin u baahan yahay codkiisa in la qaado dadkii ku habboonaa la gaarsiiyo sidoo kale ardayga marka wax baranayo wuu ku qasban yahay inuu kala meel arrimihiisa la xaliyaan ujeedooyinka oo meesha kusoo aaday ka caawiyaan maqsan waxay u taagan tahay sidaas oo kale ujeedooyinkaas inay xoogahay isbeesisaan oo kale aragtida kala duwan ardayda u dhegeysanaya si loo ogaado si guud khudbadihii waa lagu dheereeyey waqtigiina waxaa waay xoogaa gaabsoo leeyahay aqoon iyo siyaasi badanaa sameyn doona ayaana la qayb qaadan doono oo sinyada baa nala iskaashana jiri doona aan falaqeyn doonaa oo ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina mar labaad iyo saddexaad waxaan iga macaankelinaya waqtigaa soo qabteen mar walbo waxaan u taagannahay inaa waxay ahayd dhegeysano codka ardayda soomaaliyeed adduunka meel walba ka joogaan oo ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi halkan ugu dambeeyo dadkii walaalahayna ahaa ee ku dhintay dalkii Soomaaliya ee anaga ka soo jeeda gaar ahaan ex control hooyooyinka walaalaha ardayda inuu ilaahay intii dhimatana jannadii firdawsi ka waraabiyo intii dhaawacantana ilaahay subxaana wa tacaala u booqayo waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aan barnaamijkan ugu soo abaabusheed waxaan rajeynayaa in aad sii wadi doontaan musnaqan doonin maanta ku ay gudaray ardayda halkan wax ka barata Nubiya midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaa muhiim ah gobol walba ha joogaan tuulo walba ha joogaan in macnaha ay hal hogaamiyeen sababta wax macnaha ma sameynayso in ardaygu meesha uu ka barto inuu gudoomiye ama ku magacaabo isku xirnaanshaha noocaas in macnaha raadiyeen waa rajeynayaa anigu waxaan ahay Soomaaliyeed waxaan ahay mas-uul ku xasuuteen markaa intaan uga gudbo waxaan kaloo rabaa inaan ku baraarujiyo waxa aan barateen inaan macnaha ii sheeg dadka inaan macnaha ku dhihin in loo qabto ardayda kulamo ama fadhiyo ay isku xogwareysanayaan kulmasaan oo kale ah in la qabto oo ardayda isugu yeero oo xogtooda iyo aaladooda la arko iskashada la qaato dabcan aqoonyahanada badan ugu jirto oo dhan walba la fiiriyo PhD gradyaana master arkibaad fiican in dadka laga faa'iideysto aqoontooda of course waxaa jiro ii sheegeen caqabado badan oo ardayda maanta intii joogay wajahayaan oo dhan walba ah ay ka mid tahay dhankii waxbarashada ay ka mid tahay dhankii joogitaankii fahamkii xataa ay xataa caqabad badan haysato dhanka ugu weyn meesha dhalinyarada waxay isku tilmaamay aaraadooda iyo wada kulmiyaan waxaa kasoo burqanaya faa'iidooyin miradal u ah bulshadeena Soomaaliyeed saan arkaysaan bankan islooganka meesha ka qoran wuxuu ka turjumayaa midowga qaranka Soomaaliyeed keliya maahan laba qof iyo saddex qof ay isugu timaado waa bulshada qaran haddan maqashaan Soomaaliyeed magacadooda so aad ay muhiim u tahay in aan kasoo qaybgalkiina in aan wax isdhaafsano iyo
discussion dhanka waxbarashada maanta maadaama aan isaga imaanay dhinaca waxbarashada iyo waxyaalaha ka hadalno ogaanahay isku imaashaha iyo hor loo wado discussionka iyo aqoon-is-wadaashiga iyo waxyaalahaas aad ay masantihiin